بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مدنيال يا مرويين مواطنين الصوماليلاند maanta oo taariikhdu tahay 28 bishii Afraad 2016 waxaan rasmi ah inoogu bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyayaasha ee gobolka Murudijeex. diiwaangelinta codbixiyayaashu waa laf-dhabarta hufnaanta doorasho xor iyo xalaal ah. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaynu ku qaabilno wadaninimo daacidnimo iyo inaynu qof kasta isku dayin inuu isdiiwaan geliyo hal mar wax ka badan aanu isku dayin ayaa muhiim ah. maadaama dadka isdiiwaan gelinaya yihiin dadkii qaangaadhka ahaa waxaa saaran mas-uuliyad taasoo ah mid dastuuriya loona baahayay inaynu si mas-uuliyad iyo qarannimo ku jirto u gudano waajibkeeda. waxaa inoo bilaabmay raxmaddii ilaahay abaartiina ilaahay waa inaga jabiyey inteedii badnayd. sidaa darteed waxaynagu waajibeen inaynu maandaq iyo xamdi u rabbi u naqno sidii ballanteenu ahayd. waxaynu halkaa ka sii wari doonnaa inaynu ka baxno muddadii aynu ku hakinaynay abaarta kululayd sidaa ay iclaamiyeen guddiga doorashooyinka qarankuna waxaa bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyayaasha ee gobolka Murudijeex oo ah gobolka ugu weyn uguna muhiimsan isla markaana ugu badan gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidaan marar badan oo hore u sheegay waxaa aniga iga go'aana xukuumaddaana madaxda u ahayna aan ku hogaaminayana ay dalka ku qabsoomi doonto doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyay ee ah horraanta 2017 haddii alla idmo. iminka laga bilaabo waxaan iclaamiyey bilaabinta doorashooyinka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee gobolka Murudijeex. ilaahayna talada iyo rugta wanaagsan hayna waafajiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.